Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan bahda ku xidhan Dhexnimo Media ay ku soo dhawaada kormeerka wararka oo noqon doona haddii Ilaahay ka dhigo. Barnaamijkan wararka dhacdooyinka dunida iyo waxyaabaha dunida ka dhaca si maalinle ah idinku soo gudbin doono. Barnaamijkan kormeerka wararka oo aan xooga dheeraad ah idinku soo gudbin doono ayaa bixi doona maalin walba haddii Ilaahay idmo. qodobada toddobaadkan ugu waaweyn waxaa ka mid ah Donald Trump oo sheegay in laga yaabo inuu xiriirka u jaro shidaalkaasi Shiinaha oo isna beeniyay xatooyo uu ku eedeeyay Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan dooneynin inuu la hadlo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxaana uu soo jeediyay in laga yaabo inuu gebi ahaanba xiriirka u jaro dalkaasi labaad ee dhaqaalaha ugu weyn ee caalamka. waraysi uu siiyay telefishinka Fox Business ayuuna Trump ku sheegay inuu aad uga niyad jabsan yahay guuldarrada China ay ku xakameyn weyday faafitaanka cudurka coronavirus sida uu sheegay. ma ahayn marnaba ay ogolaadaan in ay tani dhacdo ayuu yiri Donald Trump. waxaan la galay heshiis ganacsi oo weyn hase yeeshee iminka sidii hore ma dareemayo warqadihii lagu qoray heshiiskaasi weli waa qoyan yihiin balse waxa yimid saf Mareykan mana muuqato hadda sidii hore ayuu yiri Donald Trump. cadhada Trump ee ka dhanka ah Shiinaha ayuu sidoo kalena ku soo daray madaxweynaha Xi oo marar badan uu sheegay inuu xiriir wanaagsan la leeyahay. ma doonayo inaan iminka la hadlo ayuu yiri Trump oo waraysi uu siinayay Fox Business oo la duubay Arbacadii lana sii daayay Khamiistii. Trump ayaa waxaa lagu weydiiyay soo jeedinta ka timid senatarka Jamhuuriga oo ahaa in dalku galka Mareykanka loo diido ardayda Shiinaha ee codsanaysa waxbarashada. waxaa jira waxyaalo badan oo aan samayn karno waxaana ka mid ah in gebi ahaanba aanu xiriirka u jarno ayuu yiri Donald Trump dalkaasi Shiinaha. haddii aan sidaasi sameyno maxaa dhici doona? waxaad kaydin kartaa $500 bilyan ayuu yiri Trump oo tixraacay qiimaha badeecadaha sanad kasta uu Mareykanku ka soo dhoofsado Shiinaha. dhanka kalena Shiinaha ayaa beeniyay xatooyo uu ku eedeeyay Mareykanku. Shiinaha ayaa Mareykanku ku eedeeyay inuu gafay kadib markii Washington ay sheegtay in kooxaha internetka ka jabsadeen Shiinaha ay isku dayeen inay xadaan cilmi baadhis la xiriirta horumarinta tallaalka cudurka coronavirus ama COVID-19. mas'uuliyiin Mareykan ayaa Arbacadii sheegay in kooxdan internetka ka jabsaday ay isku dayeen inay helaan xogo la xiriira tallaalka daaweynta coronavirus iyagoo ka digaya isku dayda oo ay ku lug lahaayeen kooxo ku xidhan dowladda Shiinaha. FBI-da Mareykanka iyo hay'adda amniga internetka ayaa la sheegay in dadaalada Shiinaha ay halis ku muuqato ku yihiin jawaabaha Mareykanka ee COVID-19. China waxay si xoogan u muujinaysaa inaysan ku qanacsanayn kana soo horjeedo gafka noocan ah waxaana sidaas yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Xi Jinping oo shir ku qabtay Beijing. Xi ayaa sheegay in Beijing guul u gaar ah ka sameysay dagaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19 ee dunida jahwareeriyay. si kastaba ha ahaatee Xi ayaa sheegay in ficil kasta oo online ah oo lagu waxyeeleynayo dadaalada socda ee ka dhanka ah cudurka COVID-19 ama coronavirus ay tahay in la cambaareeyo. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa hore uga dhaxaysay xiisad dhanka ganacsiga